بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaan rabaa inaan mar kale sidii aan horeba u samayn jiray video yar oo ku saabsan teknolojiyada casriga ee maanta caalamka inaan xoogaa wax kaga hadlo. waxaan rabaa inaan ka hadlo waxa la yiraahdo artificial intelligence ama AI waxa loo yaqaan. in badan oo caalamka maanta markaad eegto AI ama markaad ka hadlayso laga hadlayo teknolojiyada iyo meesha ay marayso haday noqoto dhinaca wadamada ku horumaray xagga teknolojiyada cusub casriga ah ee internetka, haday noqoto dhinaca dhaqaalaha, haday noqoto tartanka caalamka ugu jiro teknolojiyada cusub iyo heerarka laga gaaray. waxa aad u badan inaad maqasho hadaad akhrido ama raacdo wararka adduunka ama waxyaalaha ka socda caalamka inaad maqlaysid AI artificial intelligence markii iyadoo kooban yani hadaan marka hore bal tilmaano waxa weeye waa qalab la isu geeyay sida software, computer iyo aalado kale oo markaa u shaqeynaya sidii bini aadan oo kale. artificial intelligence waxa iska leh bini aadanka Ilaahay intelligence siiyay, waxyaabahan kale oo Ilaahay nooga dugay inaan wax garanno oo wax baranno oo caalamkii aan noqono wax aqli leh oo shaqeynayo, jawaabayo oo wax garanaya. marka taas oo kale to artificial intelligence waxa la sameeyaa computerkii ama systemkii softwarekii waxa laga dhigayaa inuu wax fahmo oo qofkii uu u jawaabo oo sidii bini aadan kale u shaqeeyo. inkastoo hadda bini aadan waxa Ilaahay abuuray subhanahu wa ta'ala oo maartay Ilaahay oo abuurdiisu ay tahay wax weyn oo muhiim oo maartay bini aadankana uu ku tilmaamay in fi ahsan taqwiim uu ka sameeyay. haddana waxa weeye bini aadanka naftiisa ayaa waxay rabaan inay hawl fududeyn sameeyaan, inay waxyaalo badan u adeegsadaan machine ama computer ama software. taas ayaan markaa xoojisay arrintan artificial intelligence in tartan loo galo. haddaan ka noqono artificial intelligence for example waxa laga yaabaa inaad aragtay warshadaha iyo markii hore inay ku soo bilaabatay in shaqooyinkan dadku ay ku daalayaan in machine ama software uu qabto oo aad arkaysid warshadii alaabtii hadii wax la alxamayay hadii ma taqaanaa alaab la soo saarayay ama wax la process gareynay la soo saarayay alaab la soo saarayay baabuur hadii la soo saarayay hadii wax anything oo markaa ku saabsan warshadaha ayaa marka hore waxa la yiri hawlo badan oo dadku ay ku daalayaan oo qofku laga yaabo saacadaha haduu ka shaqeeyo inay ka noqonayso maartay uu daalayo in machine loo bedelay oo la yiri machine-ka fudud marka sidaa darteed isaga ku celcelinaya haduu alxamiyo iyo haduu shay meel ka qaadayo waxa kadib waxay soo gaartay qaybta maaliyadda iyo waxaan la yiraahdo financial analysis suuqyada adduunka ee lagu kala iibsado shareerka ama saamiyada. badanaa waxa la sameeyay systemiyo isla markaas daqiiqad secondaba maaragtay daatada badan informationka badan ee ku soo dhacaya ku saabsan lacagaha iyo wax kala iibsiga iyo waxa inay turjumaan oo bedelaan isla markiiba ay ka dhigaan wax go'aan lagu gaari karo in shirka la iibsado iyo in la gado. waartay suuqyada way fluctuation baa dhacaya mar kor buu kacaya price-ku marna hoos buu dhacaya mar sidoo kale dhinaca saadaasha hawada iyadana markii hore artificial intelligence iyadana machine waaweyn oo computer aad awood badan oo super computers la yiraahdo baa la sameeyay oo markaa informationka hawada oo satellite-ka iyo aaladaha kale ay keenayaan inay markaa ay sameeyaan waxa la yiraahdo maaragtay prediction saadaalin oo waxa dhici doona waa taa intaas roob halka ka dhici doona halka hurricane baa maraysa waxa sawirada markaad eegto saadaasha hawada iyadana inkastoo bilowgii ahayd laakiin hadda waa sii casriyoobay oo aad bay waxa la ogaanayaa wixii sakana waxa lagu ogaan karaa marka hawlaha waaweyn oo warshad la sameynayo oo waxyaalaha wax soo saarka si loogu dedejiyo ee artificial intelligence loo isticmaalayo oo robots waxa la yiraahdo gacmahan aad arkayso warshadu wax qaadayo wax riixayo wax soo
ومرة بكل علمي وحل حمية وح ومارتي حول فوضين تصلوا وطلقلي أما فلان ساعة كشغين كره financialka iyo lacagaha adduunka iyo suuqyada bangiyada iyo waxa iyo daatada badan oo iyadana si loo analyze gareeyo oo loo taxliiliyo markaana isla markaasna go'aan looga gaaro oo si qofku u iibsado share-ka uu markaa u arko inuu habboon yahay isagoo graafkaas eegay iyo saadaasha hawada laakiin wixii internetku ka soo bixitaankiisa 1990 wixii ka dambeeyay internetku soo xoogaystay 2000 wixii ka dambeeyay waxa artificial intelligence noqotay in loo isticmaalo waxyaalo badan oo dhinaca caafimaadka dhinaca ururinta macluumaadka ama intelligence-ga dhinaca siraha in siro maaragtay la helo in consumerska iyo macaamiisha sida wax u iibsanayaan ama sida ay adeegyada ay online-ka ka gadanayaan ama u isticmaalayaan shirkadaha waaweyn oo dhan hadda sida Google hadii la yiraahdo iyo hadda Amazon tiraahdo iyo hadda Alibaba tiraahdo iyo hadda Facebook tiraahdo kulli waxay isticmaalaan artificial intelligence oo macluumaadka iyo information-ka iyagu ay u baahan yihiin ay ku ogaadaan si dhaqso ah for example hadda Facebook oo kale waxa lagu soo guraa intaas oo video iyo sawirro iyo waxyaalo badan inkastoo ay jiraan dad eega waxaan oo sawirkan ogolaada ama sii daaya haddana laakiin inta badan systemka qabta iyada systemo la sameeyay oo loogu talagalay oo la baray oo artificial intelligence waxa kamid ah machine learning machine-kii ayaa waxa laga dhigayaa ama loo tababarayaa inuu waxyaalaha qayrkood hadduu arko isagoo garto hore ka garto oo marka aqoontiisana ay sii kororto oo uu ogaado oo automatically u qabto hadda marka sawirro badan ama video badan waxa dhici karta automatically in hadday xun yihiin ama kuwii loogu talagalay aysan ahayn in la diido oo Facebook automatically uu soo bixi waayo ka istaago kuwa badanna sida caadiga dad caadi oo isla markiiba arkay sawirkan ama videogan oo markaa joojinayo diiday laakiin in badan systemka qabanay waxa sheegaya macnaheedu software la baray machine system la baray inuu waxa xun oo dhan uu celiyo qabto artificial intelligence hadda meelaha ugu muhiimsan oo eegi karno waxa kamid ah baabuurtan iskood u socota oo iswada oo laamiga wadada maraysa oo dadkii ka leexanaysa oo traffic ka leexanaysa oo meeshii markaa leerkii gudubnaa istaagayso sidii baabuur caadi oo maartay qof wada oo kale u soconaysa oo waliba mararka qaybto ay leeyihiin waa kanaba ka safe-san kanaba ka badbaadsan oo maartay sistemada marka baabuurku isticmaalayo dhinaca satellite isticmaalaya dhinaca isticmaalaya internet isticmaalaya dhinaca isticmaalaya information badan oo hore loo keediyay oo ku saabsan kaamiradu dhulka ay qabanayso ama ay fiirinayso waxaas oo information kaas markaa toos kaamiradu u qabanayso ama signalska uu helayo ayaa datadii information ka tirada badan system application ama computer awood u leh oo isla markiiba isla dad gaar u socdaba u tarjumayso u sheegayso oo haduu waxaas u yahay qofna ka istaagaysa haduu yahay bir haduu yahay mataqaana wadadii meeshii la rabay hadaysan ahayn waxaas oo dhan isla ilbriqsigaas gaariga socdo boqolka mayl ku socdo 100 kilometer ku socdo waxa weeye wuxuu helayaa information ku u baahnaa wuxuu helayaa oo wadadan ku ogaado inay tahay wado caadi oo uu soconayo meeshii la rabay gaari meeshii loogu talagalay inuu gaarino istaagay diyaaradaha naftooda waxa weeye iyadana waxa laga dhigay aad ba loo casriyay oo information badan oo pilotku u baahan yahay ama uu pilotku qaban jiray baa qabanaya computer baa qaban system baa qabanaya computer ka shaqeynaya oo hawshii la wareegayo waxaan la yiraahdaa autopilot oo inta badan diyaaradu markay kacdo wareegay tan u jirtay pilotku markuu fariisiyo oo wadada ku fariisiyo dhig autopilot kaas on ka dhigaya bas asaga wadaya customer walba uu qofadiyo wixii xaaladii la soconayo laakiin information kale oo badan oo muhiim ah ay artificial intelligence waxa la yiraahdo ay ka caawinaysaa diyaaradii oo for example diyaaraddu marka ay socotoba waxa lagu leeyahay intaas oo kun oo signal ay diraysaa oo u diraysaa shirkadii motorada ama sistemyada saaran samaysay si marka isla markaasna ay u fiiriyaan oo ogaadaan diyaaraddaas xaalkeedu qaybaheeda kala duwan dad meel fadhiyo toos muraayado waaweyn oo
ayay ka eeganayaan informationkaas oo markaana computerka iyo systemka ayaa turjumayo oo sheegayo cilad haddii laga yaabo diyaaradda inay kusoo socoto laga yaabo inay meelaha qaybta wax ka jiraan isla markiiba tilmaamayo markaas waxaa loo diraya informationkii ama halkaasaaba laga saxaya xagga safety iyo badbaadada ayay artificial intelligence qayb ka tahay dhinaca kale oo aan aragno ama la arkay waxaa ka mid ah xagga waxaan la yiraahdo surveillance-ga ama in dadka lala socdo dhaqdhaqaaqooda meesha ay marayaan waxa ay sameynayaan qofku dowladuhu hadda sida China-iska oo ka Shiina oo kale Mareykanka Yurub wadamada awoodda ku leh teknolojiyada Russia Israa'iil wadankan Yuhuud aad bay ugu khatar ugu yihiin waxaan la yiraahdo surveillance technology ama teknolojiyadan wax lagu basaaso dadka lagula socdo marka nidaamka China oo kale waxa weeye marka aad ka digto airport ama meel kamid oo inta China aad ka digtid ilaa maalinta aad ka soo baxayso email kasto aad martay waxaad cunto dalbatay wax kasta waa la socdaa saacad second loo socdo waxaan la yiraahdo face recognition in wajiga qofka si automatic oo dambiilaha ah in la qabto soo iska socdo dhab wali halkaas uu maraya hebel waa ka camera qabatay camera system ku xiran kamerada ayay u diraysaa signal image kaas isla markiiba sawiro badan oo kaydsan ayaa ay daqiiqad second-kiiba waxay sheegaysaa in qofkaas uu yahay qofkii la raadinay kadibna booliiskii ama cidii amniga ku saabsaneed oo dhab qofkii qabanaysa soo wada iska socdo soo leexo waxa tahay ninkii la raadinaya marka face recognition ama qofka la ogaado airportada haddaad safarto ama qofku uu safro uu ku arkaya kaamirooyinkan laga qaadayo lagu leeyahay isha halkaas saar ama waxaan saar waxay ka mid yihiin waxyaalahan artificial intelligence ka mid systemka la feed gareynaya systemka la baraya machine learning waxa la yiraahdo qaybtaas machine learning oo machine inuu wax barto waxa qayb ka ah datadan tirada badan big data iyaduna waa qayb kale oo ka mid ah technology internetka oo laga yaabo markale inaan ka hadalno ayaa la keydinaya informationka la keydinayo wuxuu keenayaa in machine-kii la baro waxaas oo kala duwan oo wajiya oo kala duwan oo faces qof walba la si weegi banaanka labadii wada dhashay oo mataanaaba xataa aan soo arkay marka qaybta marka waa hab kale oo bini aadanka lagula soconayo dhaqdhaqaaqooda lagula soconayo meel kasta oo marayso oo maanta hadda telefoonka gacanta kugu mobilkaaga sidato oo internetka soo qabta khaasatan waxa weeye waa shirkadaha waaweyn oo dhan ama Google isticmaal ama YouTube isticmaal ama meel kale ama Facebook ama wax kale ama Instagram ama WhatsApp wax kasta oo sameynayso waa lagu ogyahay hal wala socdo waxa dad dhibaato inay ku geystaan iyo kuwa raba inay ogaadaan in kaliya habnololeedkaaga iyo iyagu ka faa'iiday shirkadaha badan hadda Facebook oo kale wax kasta oo ku post garayso wax kasta oo sawir kasta oo geliso wax kasta oo aad maartay adigu qorto wax kasta oo samayso waxay ka fahmayaan adiga qof ahaan dabeecadahaaga iyo habnololeedkaaga iyo meesha joogtid iyo waxa jeceshay waxaan jecelayn wax marka kadib ayay datadaas macluumaadkaas ururinayaan oo waxay ka iibinayaan shirkadaha ay isleeyihiin ninka ama gabadha ama qofka kan waxa weeye waa alaabta ay hayaan way u baahan yahay adiga Facebook waxa la yiri waa blash Soma marka blash macnaheedu waxa weeye adiga ayaan badeeca oo raahba dhahaysa mataqaana hadii waxa isticmaalaysa uu yahay free then you are the product adiga ayaa marka productiga waxaan waxay isticmaalaan shirkadahan hadda Facebook iyo Google iyo markaad eegto inta badan dadku oo meesha iska furan oo dadku isticmaalayaan blash bay u isticmaalayaan yani lacag marka bixinayso toos ma jirto internetka aad xirad isticmaalaysid oo lacag ku bixisa ma ahan laakiin sidoo kale application ahaan inta la soo dirtay lacag ma bixin sida darteed adiga ayaa waxa tahay badeecada qaybka marka macluumaadka badan ee dadku ay marka meel fariisan sawirayaan waxaan ay meel istaagaba uu sheegayo wuxuu rabo iska qorayo ciduu rabo oo tacaadeenay kulli waxa soo dhan waxay noqonaysaa waxa ka adeeganaya systemo iyo application loogu talagalo inta badan artificial intelligence oo marka waxay target gareynayaan qofkaas dabeecadiisa wixiisa wuxuu xataa siyaasadahan cid aaminsan oo Mareykanka iyo markii ay ka andacoonayeen 2016 qaasatan markii soo baxday doorashadii Mareykanka Donald Trump ku soo baxay
Facebook iyo internetka aad loo isticmaalay in propaganda badan iyo dacaayado badan lagu taageero Donald Trump islaantii la tartamaysa Hillary Clinton hoos loogu dhigo oo lagu karbaasho waa isla platformkii ama systemkii Mareykanku uu sameeyay company-ga weynaa ee Facebook ayaa asagii loo isticmaalay in iyaga lagu kala qaybiyo sababtoo ah waxay sababtay teknolojiyadu gaartay maanta in qofka shakhsi ahaan waxa uu damacsan yahay waxa uu rabo waxa uu maagan yahay halka lagala socdo oo si fududna markaa kadib loo ogaado waxa adigu aaminsan tahay kadibna lagu sii geliyo waxaan idhaan echo chamber yani wixii adigu aaminsanayd baa lagu sii aaminsiinaya oo lagu sii jeclaysiinaya marka dadkii waa la sii kala fogeynaya oo teknolojiyadu meesha dadka soo dhaweynaysa awal sheekadu ahayd hadda waxay noqotay sida aan wada ognahayba in dadka lagu kala fogeeyo qof walba uu luuqiisa inta la galo wuxuu soo aaminsan yahay uu sii aamino wixii ka kale aaminsan yahay uu arko waxa macna lahayn Soomaali dhexdeena waa ku arkay marka artificial intelligence waxaan wixii asal ahaan robots-kaas warshadaha saadaasha hawada taxliilinta iyo ogaanshaha suuqyada iyo lacagaha meesha wax marayaan iyo xataa badeecooyinka sistemadaas ayay ku soo bilaabatay oo kontameeyadii lixdameeyadii todobaatameeyadii saas u soo socotay laakiin internetka xilliga uu yimi waliba 2000 wixii ka dambeeyay ayay waxay noqotay in la ballaariyo oo wadamada hadda ugu xoog waaweyn adduunka maanta oo ku tartama ama la sheego Yurub markii la isu geeyo waxay dhahaan waa qolada saddexaad Yurub yani Yurubtan waqooyi ama Yurubtan wadamadan Jarmalka Ingiriiska Faransiiska Talyaaniga waxaan isku dar kuwan Yurubta nafteeda qaybtan galbeedka waa dhinac oo teknolojiyada artificial intelligence waxa la sheegay inay qaybta barag saddexaad kaga jirto xagga maalgelinta iyo maartaqaanaa iyo adeegsigeeda iyo isticmaalka koow waxa kaga jira la yiri dalka Shiinaha Mareykanka kaga jira Mareykanka koow kaga jira xagga maalgelinta laakiin Shiinuhu wuxuu ku jira labo xagga laakiin isticmaalka iyo adeegsiga iyo hirgelinta oo maanta baabuurta ku socota iyadoo aan la wadin China ku badan oo meelo badan oo China ka mid ah way jiraan tareema jira iska socda baabuur caadi oo taxi la kireysta jira kuwa duulaya jira dhinaca surveillance iyo dadka in la socdo iyo qof walba wuxuu sameeyo meeshu taagan wuxuu sameeyo iyaga China la muranka dhinaca adeegsiga kimbaniyadu khaasatan sida Alibaba oo kale ama Tencent hadii la yiraahdo ama iyaguna aad bi advanced ugu yihiin applicationadu waxyaalaha iyagu ay productyada iyagu dadka ka iibiyaan billions ka sameeyaan waxa qayb weyn ka ah artificial intelligence oo dadkii macnaheedu ugula tacaali oo lagula socon shirkadaha waaweyn Google iyo iyaga ugu horeeya xagga consumerska iyo Facebook iyo shirkadahan weyn Amazon iyaduna waxay ka mid tahay shirkadaha ugu weyn adduunka ee artificial intelligence isticmaalo waliba kuwan xagga voice recognition waa sheegnay Soomaa artificial intelligence inay qayb ka tahay yani codkaaga inaad inta isticmaashida guri ku furato ama shaaha dalbato ama guryahan waxaan smart houses ka yiraahdo guryahan teknolojiyada lagu qalabay qalabka oo dhan oo adoo la hadlayo uu ku sameeyay qalabka deviceska Amazon baa la muranka ah oo applicationada iyo systemka ay isticmaalaan Amazon qalabkaas Amazon Echo oo caadi halka aad fadhiyo halkaas ku taala ma hadlaysaa marka orderski wixii ay bixinaysaa internetka toos ugu xiran adoo xaafadaadii adoo xafiiska jooga baad amar siinaysaa iyo maartay waxyaalo badan lagu qabanayo وهذا codkaagii caadi computerka caadiga ama softwareki waxa lagu emailki baad diraysaa oo adoo hadlayo waa sheegaysaa jib uu qoraya sida qoraya waan ku dirnay marka voice recognition codka ama voice recording sawna qayb uu ka yahay dhinaca caafimaadka iyo artificial intelligence wax ka oo hadda waxa jira robots ama machino qalliinka sameynaya soo dhakhtar iyo waxba joogo si fiican oo cajiib ah u sameeyay kuwa dhakhtarkii uu isticmaalaya jira oo robotkii machinkii dhakhtarkii uu joogo asagoo ku shaqeynayo oo marmarka toosinaya laakiin asagoo hawshiisii si ka fiican sidii qofku midida asagoo isticmaalaya qalabkii u jaraya meelihii wixii dhan u hagaajinayo si fiican oo maanta cajiib ah u sameeyay xaggi ogaanshaha cudurrada qofkan wuxuu qabo
cudurka uu qabo noociisa waxaa hadda boqolkiiba 95 la yiri systemo waxaa jira saxaya oo halkii dhakhtarkii la taliyaha ama consultantiga ahaa ee 20 sano khabiirka ah laga yaabo boqolkiiba 75 inuu saxo oo markuu arko hal yiraahdaa image-ka sawirkaas ama raajadaas inuu boqolkiiba 75 saxo halka computerka ama systemku uu saxayo boqolkiiba 95 marka dhinaca caafimaadkana waxa laga gaaray xagga baridda iyo cilmiga gudbinta waxaan hadda lagu leeyahay virtual reality lagu leeyahay adoo garow jooga ama boosas jooga ama xamar jooga ama anywhere adduunka meesha rabto jooga ayaad waxaad booqanaysaa ama sidii nin maartay jooga Paris oo kale ama London oo kale ama dayax gacmeedka oo kale ama badda oo kale adoo dhex dabaalanayo oo wax ka soo saarayo kaamirooyin yar inta iibsato qalab yar inta gashato oo ayaad waxaad moodaysaa inaad meeshii dhex joogtid waxaan la yiraahdo virtual reality oo adoo halka jooga laakiin meel kale adoo jooga amal oo kale ama tababar aad qaadanaysid ama hawl aad qabanaysid adoo aan bartaada ka dhaqaaqin just kiyaalo iyo waxyaalo loogu talagalay virtual reality gashanay laakiin virtual reality waxa hoos jooga artificial intelligence waa asalka eriyo badan oo aanu sheegi doono sida internet of things waxa la yiraahdo internet of things iyo artificial intelligence waa xiriir beeli that big data hada maqasho iyo artificial intelligence xiriir beeli xeelaha hadda teknolojiyada maanta socoto dhan asal waxa uu ah ama koow ka ah artificial intelligence quantum computing ba maqlaysa oo ayadana qayb weyn oo hadda yani cilmi baaris iyo ku socoto oo internetka maanta wuxuu marayaa la yiraahdo hadda iyo mustaqbalka waa inaad online tahay ama aad internetkii teknolojiyadii ka faa'iideysanaysaa hadii kale waxaad noqonaysaa qof cillad jooga oo laga tagay oo aan maaragtay haray baad noqonaysaa marka topican artificial intelligence waxa laga yaabaa hadda saam sharaxay xoogaa inay iska bahalki tahay laakiin waa maado weyn oo aad u ballaaran waxaana asal ah oo asal ahaan ay tahay in waxyaalo badan oo bini'aadanku ay ku qaadato waqti badan in machinkii computerkii la baray softwarekii iyo computerkii iyo wixii inta maartay applicationadaas systemka la baray kadibna uu markaa hawshii asagoo qabanayo oo hadda coronavirus iyo markay dhaceen waa aragnay airportada meelo badan oo nadaafadii hataa qofkii in la baaro cudurkii meelo badan waxa la hirgeliyay ama la hawlgeliyay robot binaadam loo kiisiyo xataa jira oo hadlayo sidii qof camal oo kale kula sheekeysanayo ku salaamayo ku soo dhaweynayo meelaha hospitality museumska iyo meelaha dalxiiska waxa soo dhan artificial intelligence robot ba hadda maqasho artificial intelligence horta anna artificial intelligence robot oo dhan horta artificial intelligence laakiin haddana waxa arkaysaa software-ka caadiga sida Facebook oo kale isticmaalaysa waa software Google ba isticmaalaysa waa software laakiin gadaal waxa ka wada ama applicationska systemska artificial intelligence waa meeshan shaqeynaysa oo waxaan la socodkaan iyo wax kasta oo aad taabato in la ogaado iyo waxa soo dhan waxa weeye artificial intelligence socon ba meesha ku jirto marka artificial intelligence waa maado weyn oo runtii aad iyo aad muhiim ah ardada iyo dadka guud ahaan inay fahmaan ay tahay oo asal ahaan anagu hadda aan Soomaali ahaan dadka waxaan leeyahay macni technology-yadan aad mar walba ku mashquulsan tahay saacad walba aad sawirkaaga saartid geliso adoo cidina ku khasban meesha aad joogtid adigu aad sheegtid adoo mar walba lagu ogyahay caruurtaada iyo xaaskaaga iyo waxa aad geliso wax kasta aan markaa aan ahayn macni wax inay iska tahay istus maahan ama halay arko ama maahan waxa fiicnaadan inaad ka joogto oo aad adeegsan because mar walba adigii baa lagu sii fahmaya adigii baa lagu sii baranaya adigii baa maskaxdaada aqliga lagu cayaar oo la sii baranaya artificial intelligence ama waxaan artificial kan la leeyahay aqligu leeyahay waa computerka iyo systemskaasi wax iyo robotska waxa dagaalku galay warfare xagga dagaalka oo maanta waxa weeye waan naqaanaa diyaar iska duulayso dad dilis oo kaamirada saaran tahay unmanned area vehicles diyaaradahan drones ka leeyahay xin hal ugu dagaalamay artificial intelligence gadaal baan ka soo gelinay laakiin artificial intelligence iyada kugu filan tusaale fiican baabuurka iskii u socdo diyaarada aan ciidana wado
robotkan halkaa taagan oo ku salaamay waxaas oo dhan waa artificial intelligence laakiin haddana programmada iyo mobileka isticmaalaysid iyo systemska isticmaalaysid oo dhanna waa ku jira Facebook hadday tahay waa ku jira WhatsApp hadday tahay waa ku jira Google waa ku jira YouTube waa ku jira meel walba ku jira marka waa maado strategic ah hadda haddaad eegto weerarada dhinaca internetka la isku qaado inta badan waxaa loo waxyaalaha la iskaga difaacayo qayb waxa ka ah maalgelinta ama difaacaas artificial intelligence ka mid ah because waxaa la rabaa systems ogaadaba goor lagu soo galay ma ogid adoo lagu qabsaday uun baad arkaysaa lagu leeyahay lacag soo bix systemada waxaaguna waa la xiray waa la qabsaday marka waxaa lagu talagelayaa ama la sameynayaa in laga hortago before waxaas u dhacaan oo dhan artificial intelligence waa loo isticmaalay dhinaca difaaca dhinaca weerarkana waa loo isticmaalay dhinaca ganacsiga loo isticmaalay dhinaca bini aadamka iyo maskaxdooda in la waarana waa loo isticmaalay marka intaasaan kusoo koobaya wixii dee ka faa'iiday insha Allah khayr bay noqonaysaa wixii kale oo qaladaad aan ku darana maartay waanigi iska maartay wandareedaas ku jirta meesha halka ahaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته